بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. ولاليال halkani waa masjidka daarul iimaan ee ku yaalla waddada daarusalaam, gaar ahaan warshadda isbuunyada dhinaceeda bari. waa masaajidkii aalaab aanu idinla socodsiin jirnay maraaxisha iyo mustawaha uu marayo masaajidka. walaalayaal, sida hadda aad arkaysaan meesha aanu dul taagannahay waa saanqaafkiisii meeshii ugu sarraysay. waxa uu shuban yahay masaajidku muddo 6 maalmood ah ka hor ayaa la shubay. alxamdu lilaah, xoolihiinnii dadkii muxsiniinta ahaa oo waxaan u mahad celinaynaa dalka iyo dibadda maaragtaa ka soo taageeray, dalka gudihiisa iyo dibaddaba ka soo taageeray masjidku daarul iimaan. waad arkaysaan maalkiinnii waa kana, akoonkii ilaahay ayaad ku shubateen, wuu idinka horreeyaa, adduunyadana waa idinku anfacahay. sidaas awgeed marka walaalayaal, muddo 4 bilood ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo suurto geliyey masaajidkii daarul iimaan inuu noo shuban yahay. laakiin walaalayaal, waxaan doonaynaa inaannu dhammaanteen aannu u wada ducayno dadkii muxsiniinta ahaa oo heerkan quruxda badan masaajidkan soo gaarsiiyey daarul iimaan. ilaahay dadkooda allaha u barakeeyo, deeqooda allaha barakeeyo, diinkooda allaha barakeeyo, kuwa faqriga allaha ka qaado, dad hodan ah dhaqaale ay ku cibaadaystaan oo ilaahay ugu dhowaadaan oo adduunyadooda iyo aakhiradoodaba horumarin ay ku sameeyaan allaha siiyo. ilaahay guryana subxaanahu wa tacaala jannatulfirdows allaha uga dhigo. intaa ka bacdi walaalayaal, masaajidku si uu hore ugu sii socdo oo u dhammaystirmo, waxaannu doonaynaa inaannu idinla wadaagno baahida hadda taagan ee masaajidka. masaajidka walaalayaal hadda wuxuu u baahan yahay shamiito. waad garanaysaan xilliga salaaxa ama laborofiinada haddii la gaaro, shamiito masaajidku wuxuu cunahayaa aad u fara badan. marka masaajidku shamiito ayuu u baahan yahay. wuxuu kaloo u baahan yahay walaalayaal bulukeetina masaajidku uu u baahan yahay. waxaa kaloo jira sidaasoo kale madrasadii ama dugsigii qur'aanka oo masaajidku uu iska lahaa, isaguna waa bilow oo wuxuu u baahan yahay dhagax jaay ayuu u baahan yahay. sidaa walaalayaal darteed, qof walbaahi sadaqada aannu sheegnay xibinta uu ka qaadan karo waa diyaar ha ka qaato. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay in ilaahay deeqaaga uu kuu barakaynayo markaad ilaahay dartii aad deeqaaga u bixiso. sida rabbi uuna leeyahay subxaanahu wa tacaala, wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifuh wa huwa khayru raasiqiin. waxaad bixisaan ilaaha beddelkiisa idin siinaya subxaanahu wa tacaala. nabigeennuna wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, hantida aad sheegan karto ood dhihi kartid hanti ayaa meel ii taalla, waa midaad ilaahay dartii ula baxday. xadiiskii nasaa'i uu sunankiisa ku warinayey ayaa nabigeennu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam, maaluka maa qaddamta. maalkaagu waa midka aad hormarsatay ayaad dhihi kartaa maal iyo hanti ayaa meel ii taalla. sidaas awgeed walaalayaal, waxaannu ka helaynaa masaajidkan oo la taakuleeyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada ilaahay uu nagu marti qaado oo guri ilaahay uu nooga dhiso. sadaqada walaalayaal, caafimaadka ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu siiyaa. waa dembi dhaaf, waa xijaabkii naarta. sida nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ittaqu nnaara walow bishiqi tamra. warhoy naar iska ilaaliya, sadaqo aad timir jeexeed aad sadaqaysataanba ha noqotee, sadaqada badiya si naarta ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkaga ilaaliyo. marka sadaqadu waa balaaye xijaab, faqrigaa looga baxaa, cudurradaa lagu daaweeyaa. sida nabigeennu uu yidhi sala allahu calayh wasalam, daawuu mardaakum bisadaqa. dadka idinka xanuunsanaya sadaqada ku daaweeya. sidaas awgeed walaalayaal, qofkii keeni kara, yacni isagu shamiitadiioo toosa inoo keeni kara oo qalabka uu u baahan yahay masaajidku oo materialiska noo keeni kara, ha noo keeno. shamiitadii aa la keensan karaa, jaygii aa la keensan karaa, bulukeetigii ayaa la keensan karaa. qofkii hadda maaragtaahay lacag sidaas oo kale ku darsanaya lacag toosana, qolo walba inta awooddeedu ay tahay
ayaan ka aqbalaynaa in sha allahu tacaala. aad ayaad u mahadsantihiin. ilaahay ha idin barakeeyo, hantidiinna iyo dadkiinna iyo deeqiinnaba allah idin barakeeyo. qof walibaahi culayska haysta iyo meesha uu ka sheeganayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka daweeyo. ilaahayna kurbadiinna allaha siibo. masaajidku marka walaalayaal iyo madrasadiisaba aanu dhisno gacmo furan, aanu maaragtaahay ku qaabilno, wejigeenna iyo quluubteenna iyo akoonnadeenna aanu u furno. waxaan intaa ku daraynaa qofkii doonaya masaajidka inuu dayn bixiyo, masaajidka daynna waa lagu leeyahay. marka aanu shubaynay shubka iyo maaragtaahay materialiska kulli waxay ahaayeen qalab la soo daynsaday maadaama lacagtii masaajidku markaa ay ka go'nayd. sidaas awgeed qofkii nala soo xiriira waxaan u sheegaynaa baqaarka iyo lambarkiisa ayaan siinaynaa si uu masaajidka u dayn bixiyo, si ilaahay isaguna subxaanahu wa tacaala kurbadiisa ilaahay uu u faydo. masaajidka ilaa lacag waxaa lagu leeyahay 60,000 oo dollar ku dhowaada ayaa lagu leeyahay. marka daynkaasina waa jiraa. qofkii maaragtaahay baqaarka masaajidka dayn bixinaya, qofkii maaragtaahay alaabtaa noo keenayana sadaqada albaabkii aad doonto ayaad ka geli. hada wabillahi towfiiq. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولا ليال الحمد لله إلهكم هاتسن سيدو إذن شاقي شيخنا عالمك عابدك الشيخ الفاضل الدكتور أبو بكر حسن مالين. maantay waxaan joognaa masjidkii daarul iimaan ee magaalada muqdisho, gaar ahaan xaafadda daarusalaam dhankeeda qorax ka soo baxa. masjidkan ilaahay subxaanahu wa tacaala waqti dhow oo bilo ah, 4 bilood, muddo 4 bilood ah ayaa masjidku uu ku soo gaaray in la dado oo saanqaafkii la shubo. waxaa u baahan yahay masjidku baahiyo fara badan oo ay ka mid tahay in loo soo tabaruco oo dadka walaalaha sida shamiitadii iyo jaygii iyo mutuleelkii iyo agabkii dhammaan caramaanyadii iyo albaabadii iyo masjidka wuxuu galaa labarfiinaha oo shaqo aad u adag ah. sida sheekhu idinla wadaagana daynna waa ay jirtaa oo masjidka lagu leeyahay ilaa lacag 60,000. madrasadana ayaduna aasaasay maraysaa masjidka sida aad kaamirada ka aragteen. walaalayaal insha allahu bishii ixsaankana waa lagu jiraa, oo bishii ramadaan ee ixsaanka oo qofka wixii ilaahay agtiisa u baxsado loo laalaabayo ayaa nagu soo dhow, oo sadaqadu ay fureed, oo malaa'igtu ay ducaynayaan, oo wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xiliyadan oo kale in malaa'igtu ay leeyihiin: yaa baaqiya alkhayri aqbil. khayr qofkii raadinayo raba khayr inuu samaysto soo soco oo soo qaabil. wayaa baaqiya shari amsik. qofkii shar iyo fasaad iyo wixii hantidiisa meel xun ku bixi jiro ka joogso. marka ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay biriga ma gaari kartiin ilaa aad bixisiin waxaad jeceshiin. birigu waa nicmada iyo camalka weyn ee jannada qofku ku mutaysto. waxaa lagu gaaraa waxa la jecel yahay qofku waa lacagta inuu bixiyo. nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu noo damaanad qaaday: man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna. qofkii masjid dhisa oo ka qayb qaata wax yarba ha ahaatee in ilaahay guri uu jannada uga dhisaayo. marka walaalaha muxsiniintan waxaan leenahay soo qaabila. faa'iidooyin fara badan ayaa lagu gaaraa masaajidda ilaahay oo la dhiso. kow, qofku wuxuu ku helaa maalkiisa ilaahay u barakaynayo, sidayba ilaahay uu yidhi: wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu. wixii aad baxsatiin ilaaha idiin laalaabayo, idiin badinaaya oo beddelkeeda idiin siinaya. waxaa kaloo lagu gaaraa maxabada ilaahay subxaanahu wa tacaala, qofka ilaahay inuu ku jeclaado beytka ilaahay taageeray.
wa axsinuu in allaha yuxibu almuxsiniin ixsaan sameeya ilaahay dadka muxsiniinta waa jecel yahay sidaas oo kale waxaa lagu gaaraa qofka inuu gurigii jannadii ilaahay subxaana wa tacaala guri ka dego oo meeshaan masjidka uu dhiso daraaddii ilaahay guri jannada uga dhiso sida nebigeenna uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam walaalaha intii hore uga qayb qaadatay ilaa masjidka bilowgiisii yacni dal iyo dibad meeshay joogaan rag iyo dumar ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa ducada sheekha inuu aqbalo qof walbana muraadkiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu fududeeyo ilaahay subxaana wa tacaalana qof walba waxa uu ku doonayo sadaqadiisa adduun iyo aakhire inuu ku siiyo walaalaha kale oo ina daawanaya ama ina dhegaysanaya caalamka meeshay joogaan waxaan leenahay insha allahu tacaala akoonnada iyo lambarada shaashadda inkaga muuqda masjidka hala soo taageero oo waa gebangebo hala dhammaystiro insha allahu tacaala qof kastana insha allahu ilaahay waxaan rajaynaynaa wax fara badan maal fara badan uu masjidka uga qayb qaato in maaragtay uu ilaahay subxaana wa tacaala uu siin doono waxaa xusuus mudan walaalayaal deegaankan masjidka uu ku yaallo yacni waa deegaan cidlo ah oo maaragtay wax masaajida aysa ka dhoweyn waa deegaan aan fiirinay dadka hadda soo degana aaday u badan yihiin oo doonaya masjidka inay ku cibaadaystaan marka masjidka walaalaha muslimiinta si ay dadkan deegaanku ay ugu duceeyaan in laga qayb qaato waaye oo insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kasta uu jeebkiisa u furo sheekha ducadiisana inuu aqbalo deynta masjidka lagu leeyahana waa deyn sheekhi ku qoran oo hadda masjidka lagu dhegi maayo marka si ilaahay subxaanahu wa tacaala deynta uu nooga fududayna qofkii maaragtay maantay ka qayb qaadanaya waa u ducaynaynaa duco gaara ayaan u ducaynaynaa oo hadda masjidku tallaabo ma qaadi karo ayagoon deyntii hore la bixin wax tallaaba lama qaadi karo marka jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu idin fududeeyo dhammaanteen insha allah masjidka aan ka qayb qaadanno ilaahayna ramadaanka dadka la xoreynaayo albaabada jannada loo furo allaha nagu daro baaraka allahu fiikum assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتنا ضاونا إذا دبدا يقودها با نينك إذا هضلايا وخادمك مسجدك دار الإيمان مقعيق وحا ليرهدا عثمان حسن مالين وخادمك مسجدك وجوغي وحي الله وحا الله وحي صدقك كان سنايا جاهز وها إنو كقبطو marka masaajidkuna meel fiican ayuu marayaa baaraka allahu fiikum sidaad arkaydiin saanqaafkii ayaan dul taagannahay muddo adiga 6 maalmood ka hor ayaa la shubay hadda ka bacdi waxaan u diyaar garoobaynaa insha allahu tacaala ilaahay dib noo ogolaado salaaxmadii marka salaaxmadu dadka dhismaha yaqaan waxay u baahan tahay shamiido iyo caro ayay u baahan tahay marka qof walba intii tabarteeda baaraka allahu fiikum ha ka soo qayb qaadato masjidkuna waa leedin sheegay meesha uu ku yaalo waa warshada shaakir oo isbuunyada dhinaceeda qorax soo baxa ayuu ku yaalaa taleefankaygu waxa waaye 6 mar kale markaan ku celiyo taleefanku waa 6 baaraka allahu fiikum masaajidka soo taageera wax cid walba karaankeeda ku soo taageerto qoftii shamiido wada qoftii carro wada qoftii jaay wada masaajidka wuxuu leeyahay kale madraso ayuu leeyahay way ku dhinac taallaa qof walba wixii iyadana laga qaybto waydana way noo socotaa bilow fiican inoo mare baaraka allahu fiikum hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh